soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u heshaan wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada iyo kala duwan ama aadan hore ugu xidhiidhina nagu soo biira waanad ku mahadsan tihiin daawashada iyo la socodka barnaamijka maanta waxaynu ku bilaabeynaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ruushka iyo Ukraine khasaaraha dagaalka ruushka iyo Ukraine ayaa sii kordhaya iyadoona weeraradii ugu dambeeyey ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sababeen dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba mas-uuliyiinta Ukraine ayaa sheegay in weerar ruushka uu ku qaaday gobolka Dnipropetrovsk lagu dilay 2 qof oo saarnaa gaari rakaab ah halka 12 kale oo ay ku jiraan 2 carruur ahna ay ku dhaawacmeen magaalada Nikopol sidoo kalena gobolka Sumy 1 qof ayaa ku dhintay halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen gobolka Zaporizhzhia dhanka ruushka duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa sheegay in difaacyada cirka ay soo rideen ugu yaraan 28 diyaaradood oo kuwa droniska ah kuwaasi oo ku wajahna caasimadda muddo ku dhow hal saac gudaheed weeraradan ayaana yimid kadib maalin markii ruushka uu sheegay in 5 qof lagu dilay weerar ay Ukraine ka fulisay gudaha ruushka iyo jasiiradda Crimea oo ruushka uu ka qabsaday Ukraine sanadkii 2014 dhanka siyaasadda xiisad cusub ayaa ka dhex dhalatay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov iyo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio. Lavrov ayaa dalbaday caddeyn ku saabsan hadallada Mareykanka ee sheegaya inaan wax heshiis ah laga gaarin shirkii Alaska ee u dhexeeyay madaxweyne Vladimir Putin iyo madaxweyne Donald Trump. ruushkana waxaa ku adkeysanayaa in isfahamyo muhiim ah laga gaaray kulankaasi halka Mareykankuna uu sheegay inay jireen oo kaliya soo jeedimo oo aan heshiis rasmi ah la gaarin markana dhulgariirka Venezuela howlgallada samata bixinta ayaa weli si xawli ah waxay uga sii socdaan dalka Venezuela iyadoo uu gabaabsi ku dhow yahay 72 saac ee ugu muhiimsan ee lagu badbaadin karo dadka ku hoos jira burburka kadib 2 dhulgariir oo xoogan oo dalkan ku dhuftay maalinnimadii Arbacada ee toddobaadkii tagay mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 920 qof ay dhinteen in ka badan 3300 kalena ay dhaawacmeen halka welina la leeyahay in ka badan 51,000 oo qof magaalada xeebta ku taala ee lagu leeyahay ayaa noqotay goobta ugu daran ee ay musiibadan saameysay waxaana dowladdu ay xadiday gelitaanka deegaanka si loo fududeeyo howlgallada gurmadka iyo samata bixinta dadka deegaanka ayaa gacmahooda ku baadigoobaya eheladooda iyadoo hay'adaha gargaarkuna ay ka digayaan in darajada lagu heli karo dadka nool ay si degdeg ah u sii yaraanayso dowladda ayaana sheegtay in cunto biyo iyo gargaar kala gaarsiisay dadka badbaaday ee musiibadan kasoo badbaaday islamarkaana ay soo dhaweysay kooxaha samata bixinta iyo gargaarka caalamiga ah bixinaya mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 243 qof laga soo badbaadiyay burburka halka boqolaal mustawiciin oo kala yimid ee dalal dhowr ah ay ku biireen howlgallada samata bixinta iyo badbaadada dowladda ayaana ka digtay in tirada dhimashada ay sii kordhi karto maadaama kumanaan qof weli la yahay waa xagaag bal haatana aynu eegno qodobada kale ee ku jira barnaamijka wararka maanta dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso tallaabooyin jawaab celin ah kadib markii dowladda Burkina Faso ay si rasmi ah u jaratay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay Paris dowladda Burkina Faso ayaa ku eedeysay Faransiiska inuu taageero siiyo shabakado ay ku tilmaamtay kuwo qalalaasyo wada ah iyo kooxo argagixiso eedeymahaasi oo Faransiisku uu si cad u beeniyay jiritaankooda wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa go'aanka ku tilmaamtay mid aan sal lahayn waxaana muwaadiniinteeda ku sugan Burkina Faso ay ugu baaqday inay muujiyaan feejignaan dheeraad iyo taxadar xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayay sanadihii ugu dambeeyay iyadoo Burkina Faso ay wajahaysay weeraro joogto ah oo ay geystaan kooxaha hubeysan dalka Ciraaq ila dhinaca ammaanka ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn oo walxaha qarxasiday ay beegsatay xiro ay leeyihiin kooxo mucaarad ah oo ka mid ah Houthiyinta Iran oo ku taala waqooyiga magaalada Erbil ee dalka Ciraaq wararka ayaa tilmaamay in wax khasaaraha oo dhimasho dhaawac ah la soo sheegin maadaama xirada hore loogu daadguriyay dadkii ku sugnaa ilaa iyo haddana laba oga cid ka dambaysa weerarka waxaana ciidamada ammaanku ay wadaan baaritaano ku saabsan dhacdada waa hagaag daawadayaal waxa inagu soo fool leh wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda Mareykanka iyo Iran oo dib soo laba kacalaysay warar dhacay sidoo kale digniino soo baxay sidoo kale xubintii falanqaynta ee barnaamijka ku eegi doono
bariga dhexe iyo weerarada soo cusboonaaday balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiina taliyaha xarunta dhexe ee howlgallada militariga ee qaatam al anbiya ee ciidamada Iiraan sareeye guud Cali Cabdulaahi ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida Iiraan ay si buuxda ugu diyaar garoobeen inay bixiyaan jawaab kasta oo lagama maarmaan u ah ilaalinta xuquuqda shacabka la tacaalida khataraha ciribtirka musuqmaasuqa abaabulan iyo xoojinta sharafta iyo amniga hawaara ee dalka hadalka taliyaha ayaa yimid saacado kadib markii Iiraan ay sheegtay inay ka jawaabtay weerar ay ku eedeysay Mareykanku inuu ku qaaday xeebaha dalka ciidamada badda ee ilaalada kacaanka islaamiga ah ee IRGC ayaa sheegay in waabarigii Sabtida ay beegsadeen fariisimo militari oo Mareykanku ku leeyahay gobolka bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in tallaabadan ay ka dambeysay weerar ay ku eedeeyeen Mareykanka kaasi oo ay ku tilmaameen inuu jabiyay waajibaadkiisii isla markaana uu fuliyay duqeyn ka dhan ah xeebaha Iiraan isagoo adeegsanaya sababo kala duwan oo ay ku jirto in marinkan uu maray markab ay ku tilmaameen sharci darro oo marayay marinbiyoodka Hormuz war kale oo arrimaha la xiriira dowladda Iiraan ayaa si kale u cambaaraysay weerar ay sheegteen Mareykanku uu ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala xeebaha koonfureed ee dalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa ku eedeysay Washington inay ku xadgudubtay axdiga qaramada midoobay ee heshiiska isafgaradka ee lagu doonayay in lagu soo afjaro colaadda bariga dhexe wasaaraddu waxay sheegtay in weeraradu ay beegsadeen xarumo lagu ilaaliyo xeebaha isla markaana iyadoo xustay in ciidamada qalabka sida Iiraan ay qaadeen weerar ay ku tilmaamtay kuwa isdifaac ah oo lagu bartilmaameedsaday goobo la xiriira Mareykanka Iiraan ayaa sidoo kale ugu baaqday dalalka khaliijku inay ka hortagaan in dhulkooda loo adeegsado falal colaadeed waxaana ay ku codsatay qaramada midoobay iyo hay'adaha caalamiga ahba inay wax ka qabtaan waxa ay ku tilmaamtay xadgudubyada sharciga caalamiga ah ee Mareykanku sameeyo dadka Mareykanka taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyay lagu qaaday baqaaro lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo xarumo raadaar oo ku yaala xeebaha Iiraan CENTCOM ayaa sheegay in weeraradan ay jawaab u hayeen waxa uu ku tilmaamay weerar aan loo meeldayin oo ciidamada Iiraan ay ku qaadeen maraakiibta ganacsiga kuwaasi oo sheegay inay jabiyeen xabad joojin jirtay isla wararka Mareykanka telefishinka ABC News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa soo xigtay sargaal Mareykan ah oo sheegay in 6 diyaaradood oo dagaal oo Mareykanku leeyahay ay fuliyeen weeraradii xalay lagu qaaday 4 goobood oo ku yaala Iiraan sargaalka ayaa sheegay in bartilmaameedyadu ay ku jiraan goobaha lagu kaydiyo gantaalada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo xarumaha raadaarka ee xeebaha dalka war degdeg ah oo colaadan la xiriira oo goor dhawey soo dhacay hay'adda amniga badda ee UK magaceeda loo soo kaabiyo UKMTO ayaa sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday marinbiyoodka Hormuz sida ay hay'addu sheegtay kabtanka markab shidaal sida ayaa soo sheegay in markabka uu haleelay madfac aan la aqoonsan UKMTO ayaa waxay sheegtay in qaybta hagista markabka ay waxyeello soo gaartay balse dhammaan shaqaalihii markabku ay bad qabaan oo badbaadeen isla markaana aan ilaa iyo hadda la soo sheegin wax wasaqayn deegaan ah oo dhacday iyadoo baaritaan uu socdo dhankeeda dowladda Bahrain ayaa waxay sheegtay inay si adag u cambaareynayso weeraro diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ka eedeysay Iiraan ay maanta ku qaadeen dhulkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Bahrain ayaa ku tilmaamtay weerarka xadgudub halis ah oo ka dhan ah madaxbannaanida dalka iyo sharciga caalamiga ah waxaana ay sheegtay in dhowr diyaaradood oo drones ah ay beegsadeen dhulka Bahrain inkastoo aan la shaacin goobaha rasmiga ah ee la bartilmaameedsaday goorsii horeysay oo maanta waxa ciidamada Iiraan ay sheegeen inay duqeeyeen goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Mareykan ah taasi oo jawaab u ahayd weerarkii lagu soo qaaday xalay dhulkooda waa hagaag daawadayaal haatana waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambeysay ee barnaamijka ah oo ah xubinta falanqaynta taasoo laba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khibrada arrimaha militariga kuwa istaraatiijiyadda ciidamada siyaasadda diblomaasiyadda iyo sirdoonka sidoo kale waxaan ka marnay xubintan oo ku soo qaadanaa kuna qaadadhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso xubinta maanta waxaan ku soo qaadanaynaa kadib markii Mareykanku xalay weeraro uu ku qaaday goobo ku yaala dalka Iiraanna ay arrintaasi ay jawaab degdeg ah ka bixisay waxa arrimahan ka hadlay qabiir ku xeel dheer arrimaha militariga isagoo sheegay in Mareykanku uu bilaabay xeelad cusub oo dagaal
oo ka dhana Iiraan. Haddaba maxay tahay xeeladan? Warbixin ku aadan arrimahan waxaa inoo haya waryahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. qabiirka arrimaha militariga iyo istiraatiijiyadda Korneyl Nidaal Abu Sayid ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay ka leexdeen howlgalladii caadiga ahaa ee cirka iyo badda ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaasina ay u weecdeen waxa militari ahaan loo yaqaano howlgallo xulasho leh ama ugaarsi xulasho leh oo ku salaysan xog sirdoon. aragtidan ayuu ku sheegay isaga oo falanqeynaya duqeymaha Mareykanku uu ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala jasiiradda Sirige ee u dhow marinka Hormuz. sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka ee ciidamada Mareykanka CENTCOM, weeraradaasi waxa ay bartilmaameedsadeen goobo lagu keydinayo gantaalo, diyaarado aan duuliye lahayn iyo xarumo raadeer oo xeebaha ku yaala. Abu Sayid waxa uu sheegay in istiraatiijiyadan ugaarsiga xulashada leh aysan u baahnayn khasaare siyaasadeed ama mid dhaqaale oo weyn, sidaas daraaddeedna ay noqon doonto hab Mareykanku ula macaamili doono Iiraan marxaladaha soo socda. waxa uu sheegay in xadgudub kasta oo Iiraan ay sameyso looga jawaabi doono qaabkaas. si kastaba ha ahaatee waxa uu meesha ka saaray in duqeymaha Mareykanku ay horseedi doonaan isku dhac militari oo ballaaran oo u dhaxeeya Washington iyo Tehran, isagoo oo ku tilmaamay wixii dhacay isku dhac militari oo xadidan. qabiirku waxa uu sheegay in weerarka Mareykanku uu jawaab u ahaa eedaynta ah in Iiraan ay beegsatay markab ganacsi oo rayid ah oo marayay marinka Hormuz. waxa uu xusay in Iiraan aysan weli xaqiijin ama aysan beenin mas'uuliyadda weerarkaas, balse ay suurtagal ay tahay in Washington ay haysay xog sirdoon oo ay ku salaysay jawaabteeda. Abu Sayid waxa kale uu sheegay in qaabka jawaabta Mareykanka iyo bayaankii ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC oo ka digay in weerar kale uu dhalin doono jawaab ka xoog badan midda ay fuliyeen, ay muujinayaan in labada dhinacba aysan doonayn in xaaladdu isu beddesho dagaal ballaaran. waxa uu sheegay inay u muuqato in labada dhinacba ay si dadban ugu heshiyeen fariimo warbaahineed oo tilmaamaya in aan la doonayn xiisad militari oo horle. waxa uu intaasi ku daray in ujeedada ugu weyn ee duqeymaha Mareykanku ay tahay cabsi gelin, ka hortagga iyo xakameyn lagu sameynayo dhaqdhaqaaqa militari ee Iiraan. sidoo kale waxa uu sheegay in dib u soo celinta markabka dagaalka ee US Abraham Lincoln ee gobolka ay tahay tallaabo saadka la xiriirta, balse aysan ahayn diyaar garow dagaal oo labada dhinac dhex mara. Abu Sayid waxa uu sheegay in diyaaradaha fuliyay duqeymaha ay ka duuleen markabka US Abraham Lincoln oo ku sugnaa badda Carabta, qiyaastii meel 250 kilomitir u jirta xeebaha Iiraan. dhanka kale, wakaalada wararka Mahir ee Iiraan laga leeyahay ayaa soo xigatay agaasimaha dekedaha bariga Hormuzgan oo sheegay in duqeymaha Mareykanku aysan wax khasaare u geysan dekeda Sireg, isla markaasina dekedu ay si caadi ah u shaqeynayso iyadoo aan waxyeello soo gaarin qaabkeeda iyo xarumaheeda. dhankiisa, Dr. Xasan Ahmediyan oo ah bare cilmiga bariga dhexe ka dhiga jaamacadda Tehran ayaa sheegay in Iiraan ay si adag ula tacaamulayso dhaqdhaqaaqyada militariga ee Mareykanka ee gobolka. waxa uu sheegay in Tehran ay fulisay waajibaadkeedii ku xusnaa heshiiska is-afgaradka, gaar ahaan dib u soo celinta isku socodka caadiga ah ee maraakiibta muddadii ugu horeysay ee 30 maalmood, balse waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu isagoo bilaabay xadgudubyada ka dhanka heshiiska lagu heshiiyay. Maxamed Cabdiraxmaan HBN. waa hagaag aad buu mahadsan yahay Maxamed oo inoo soo koobiyay xubintii falanqaynta. intaas ayaan guud ahaanba ku soo afmeeraynaa barnaamijkii wararka maanta oo aad si toos uga daawanayseen HBN Online TV. si aad u heshaan wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tihiin maraheena bulshada ee kala duwan ama aadan hore uga xirnaynina nagu soo biira. tani intaanu dib ugu kulmi doono barnaamij midkan laacayna, waxaan idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.